kusimaha safiirka Soomaaliya ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ahna qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe oo warbaahinta qaranka la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in muddo toddobaad la hakiyay howlihii safaaradda Soomaaliya ee dalkani Jabuuti waxa uu arrintaasi ku macneeyay in ay tahay ka hortagga caabuqa coronavirus oo farabaan ku haya caalamka. waxaanu hakinay howlihii ay shaqooyinkii aan dadku u haynay ee safaaradda Soomaaliya ee Jabuuti sababta la xiriirta cudurka caabuqa ee faraha baan adduunka ku haya iyo dawladda Jabuuti oo dhammaan joojisay howlaheedii marka laga reebo in yar sida daraadeed ayaanu ogeysiinayna dadweynaha in muddo usbuuc ah fasaxaas insha Allah aan soo noqono 30 bisha hadii Ilaahay yiraahdo maadaama dhaqdhaqaaq uusan magaalada ka jirin oo ay xiran tahay dhammaan shaqooyinkii dawladda Jabuuti shaqaalihii laftooda si halkan ku soo gaari lahaayeen. Qunsulka ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti inay muujiyaan taxaddar aad ah isagoo sidoo kalena tilmaamay haddii ay isku arkaan xanuunkaasi inay la xiriiraan goobaha dawladda Jabuuti ay u cayintay in dadkaasi lagu baaro. waxaan kaloo u baaqayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dawladda Jabuuti ee wadanka Jabuuti aan walaalaha nahay inay ilaaliyaan nidaamka iyo caafimaadkooda ay guryahooda ku sugnaadaan inta amarka ay ku bixisay dawladda Jabuuti. dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa toddobaadkan markii labaad la hadlay shacabka Jabuuti isla markaana shacabka ugu baaqaya in ay ka foojignaadaan xanuunkan. dadweynaheena qaaliga ah iyo dadka kale ee nala nool waxa aan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa aan hadalka u qaatay maantana mar labaad waxa weeye dhibaatooyinka caabuqaasi coronavirus la yiraahdo oo ku hayo adduunka oo nagu soo durkaya dharaartii horena waa sheegnay maantana waan ku celinaynaa macal asaf shadiid waxa aan la kulannay laba qof oo qaba cudurkaasi labada qof waa sahala weeyaan haddana oo ayagana dawladdu ama wasaaradda caafimaadku gacanta ay ku haysaa kolka waxa waad garanaysaan oo qof qaba cudurkaasi reerkiisa hareerihiisa asxaabtiisa intaba u gaarsiinaya maalin qurahatay inuu 20 iyo 30 wax ka badan u tabin karaya dhibaataduna halka ay ka socoto halkaas weey waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadino dadkeena. Mikael Cabdirashiid Barre, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.